gabdhaha iyo wiilasha halkan isugu yimid oo ka shaqaynaya in rajadii iyo mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed la soo celiyo in tusaale cusub adduunyada ay aragto in maskaxdii dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed gurigoodba dib loo shiilo oo maskaxshiil cusub laga shaqeeyo halkan in ka badan 2,000 oo qof aad isugu keenteen waxay ka dhigan tahay maadaama sanadkii hore meesha aad ku qabsateen meel ka weyn aad u baahateen waxaa muuqataa horumar weyn waxaan u mahad celinayaa dadka aan Soomaalida ahayn ee nagala soo qayb galay hawshan muhiimka oo ka kala yimid wadamo kala duwan oo dalka Sweden ugu horeeyo waa mahadsantihiin waxaad muujiseen idinkuna inaad aaminteen dalkeennu inuu qaaday tallaabo muhiim ah oo rabtaan inaad nala qaadaan tallaabooyinkaas waa mahadsantihiin daale waan idinka nahay kulligiin waddan walba oo dunida ka yimid oo ka timaada bandhigani waxaan isleeyahay waxa uu ka turjumayaa kobaca wax curinta ee ka hanqaaday dalka Soomaaliyeed waxa uu ka turjumayaa dib u eegleelidda mustaqbalka iyo fahamka dawladnimo taas waxaa gurrigu amaantay in caruur yaryar oo Soomaaliyeed oo sheeko xariir loo akhrinayo barnaamijka ay u soo dhaweeyeen waxaa gurrigu markaan gudaha soo galay inay yaaleen intaasoo miis oo yaaleen kuwa kala duwan oo ay qoreen dhalinyaro Soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba waxaa daliil u ah dadka hadda wax qora waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah sidii gabadhii ilaahay ha karaameeye halkan soo istaagtay oo ka timid Ceerigaabo si ay anaga ii guddoonsiiso hadiyad oo ku mahadsan tahay ayaan ku leeyahay haddii qof Soomaaliyeed uu ka walwalsan yahay Soomaalinimadu inay xoog leedahay gabadhii halkan iyo hadiyadda ay siisay ayaa tusaaleyn kugu filan waxaa jiray waa dalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ee ku jiray baarlamaankii ugu horeeyay inay wax ku qoran jireen luqado kala duwan qaar waxay wax ku qoran jireen af Soomaali qaarna af Carabi qaar waxay wax ku qoran jireen af Ingiriis qaarna Carabi qaarna Talyaani waxaa jiray turjumaano u kala turjuma dad Soomaaliyeed oo wax isu qori jiray waxaad ka fikirtaan marka meesha idinku maanta aad joogtaan waxaad joogtaan waqti aad qoraysaan luqad uu qori karo ama akhrin karo qof walba oo Soomaaliyeed oo barta meel walba oo Soomaaliya uu ka joogo dunida uu ka joogo waa nimco Ilaahay na siiyey oo aan rabno inaan adkayno oo aan rabno inaan si xoojino oo aan rabno inaan sii dadabgelino waxaa halkan rabaa inaan dhalinyarada idinkoo kale ka xasuusiyo waxaa jirtay waqti marka dadka wax qoraa ama wax akhriyaa waddankeena ay aad u yaraayeen toddobaadmeeyadii markii dhalinyaro idinkoo kale ah loo diray dalka meel walba oo ka mid ah si loo soo baro qoraalka wixii lagu hosteeyey ololihii barashada af Soomaaliga ayaa waagaas waxa uu dhaliyey in dadka wax qori kara ama wax akhrin kara tiradoodu ay gaartay in ka badan 60% muddo ka yar 12 bilood wax la soo baray dad awgeed idinka marka waxaa la idinka rabaa si waxa aad qoraysaan dadka Soomaaliyeed oo dhan ay u akhrin karaan inaan annaga iyo idinku oo ay wasaaradda waxbarashada halkan fadhida ugu horeysa aan ka fikirno sidee baan ku gaari karnaa tallaabo ah mustaqbalka in qof walba oo Soomaaliyeed uu wax qori karo waxna akhrin karo markii qoraalku uu bilowday oo Soomaaliyeenu dhaqan galay dad baa idinka horreeyay
bilaabay inay wax qoraan oo ay bilaabaan wixii hadda diini igala hadlaayay oo ah suugaanta waxaa ka mid ahaa aw jaamac cumar ciise waxaa ka mid ahaa axmed xange waxaa laga yaabaa inaadan qaarkii maqlina waxaa ka mid ahaa xuseen sheekh axmed kadare yaasiin cusmaan kenadiid axmed cali faarax idaaja axmed sare jaamac iyo qaar kale oo soomaaliyeed oo bilaabay waqtigaas inay wax qoraan allah u naxariistee qaar badan oo ka mida way dhinteen inta noolna ilaahay caafimaadkooda u soo kordhiyo waxaa muhiima marka inaan ka fikirno waqtigii iyagoo ay wax qoreen iyo ku dhowaad 30 sano oo ay maskaxdeedu dansaneen ku dhowaad 30 sano oo qalinka iyo buugaagtu ay juuqda gabeen ku dhowaad 30 sano oo qalinka iyo buugaagta inta meel la dhigay qoryo lagu bedelay taariikhdii naga luntay intii waqtigaas la bilaabay iyo tan 4 sano hadda oo sanadka ugu dambeeyay idinku aad keenteen sidee baan isku xirnaa cidda la rabo inay ka shaqayso idinka weeyaan arrinkaas maanta marka waa ilaahay mahadiis inaan halkan isugu dhimin waanan ka hadlayn qabyaalad waanan ka hadlayn siyaasad laakiin aan ka hadlayno buugaag iyo qalimaan wax la qoray maskax la kobciyey iyo ummad la xoreeyey marka ugu dambaysa waddanba waddanku wax ka waxbarasho badan yahay uu ka horumarsan yahay waddanba waddanka uu dadkiisu ka akhris badan yihiin waa ka fursad badan yahay si uu hore u maro maanta marka waxa halkan aad ku haysaan waa dowladnimada dhabta ah waa dhisidda mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ee dhabta waxaa kaloo la socdaa in buugfeerkan aad ka hirgeliseen magaalooyin kale oo soomaaliya oo laga hirgeliyey in la isugu yimaadaan sidaan oo kale ama garow ha ahaato ama hargeysa ha ahaato ama meelo kale ha ahaato waxay ka turjumaysaa soomaaliya inay hurdada ka kacdo waxaan rabaa marka inaan idiin sheego waa inaan sii wadnaa dadaalka ah inaan dhiirigelinno qoraalka iyo akhriska waa in dowladduna ay ka qaadataa mug weyn si loo dhiirigeliyo dadaalka qoraalka iyo akhriska waa inaan dhiirigelinnaa qoraa la da'daya dadka dhallinta yar ee wax qora si ay ula wareegaan mustaqbalka ummadda soomaaliyeed si intii u dhaxaysay labada jiil oo maqneed iyagu ay isugu soo dhoweeyaan waa inaan dhiirigelinnaa sidii ay isu dhexgeli lahaayeen aqoon-yahanada soomaaliyeed ee da'da yar gobol walba oo ay dalka ka joogaan marka waa inaad idinku ka shaqaysaan qaabkii loo kordhin lahaa isdhexgalkaas annaguna ka dowlad ahaan aan idinla shaqayn lahayn waa in aan sii kordhinnaa dhaqanka ah carruurteenna mustaqbalka aan soo saarayno inaan ka fikirno sida ay noqonayaan maalgashiga carruurta aan ku samayno waxaa ugu horraysa maxaad carruurtiinna u qori kartaa buugaga noocee ah ayaan soo saari karnaa iskuulle noocee ah ayaan u dhisi karnaa dhaqaale noocee ah ayaan gelin karnaa idinkoo marka ah maskaxdii ummadda soomaaliyeed inaad halkan fadhidaan ood ka arrinsanaysaan howlahaas aad ayaan u soo dhowaynayaa waana ku mahadsantihin ugu dambayntii waxaan rabaa inaan idin idhaahdo si walba wax loo qoro maktabad walba oo la dhiso tiyaatar walba oo la dhiso meelo walba oo aan isugu dhimaadno weligeen meel baana maqnaanaysa haddii dalkeennu aanu lahayn dowlad shaqaysa meel baana maqnaanaysa haddii aanan lahayn dowlad u shaqaysa dadka soomaaliyeed dowlad loo wada siman yahay dowlad ka fikirta mustaqbalka ummadda soomaaliyeed dowlad ka fikirta dunida sidaan uda tartami lahayn meel baana damqaysa haddii dowladdeennu tahay mid u adeegaysa dan gaar mid u shaqaysa dan gaar
دنقا بوقت هذا آخرين إنسان أما أدخل إنسان أما مستقبل كأدهيسر إنسان وعلى الروايات كعبرتان دلكينا ماشي لغا قياس قادنا هاي دلك أولي هاي وعايد هاي معمول نوعيها يولي نظام سياسات نوعيها هاي كدسا نظام عدالات نوعيها هاي كدسا dadka idin matalaan sideeba idin matalaan ma idin matalaan misadantooda matalaan dood noocaas ah ayaa laydinka rabaa inaad ku soo dabaashaan ama aad ku soo dartaan waxaad qoraysaan anigu waxaan aaminsanahay rajada ummadda Soomaaliyeed waxay ku xiran tahay dhalinyarada meel walba ay joogaan kuwa halkan fadhiya kuwa Garowe jooga kuwa Hargeysa jooga kuwa Kismaayo jooga kuwa Beledweyne jooga أنا وأنا من سنة تبكي جوا وين أنا المستقبل الذي سميني هنا هدي آدم لقب سننا قرن مكة أنا وأنا من سنة هاي أنا عندنا واحد حسابين أطال اليوم كل حساب كمان أنا وأنا من سنة أنا قبلنا إلى نشكي رسومات وقال إسكندري هذا اليوم مخصصين لإسكندري أنا وأنا من سنة عدة كبيرة ومستعد عاصمات لابد يشم قول وين ولحد سريت تام كنت تسوي ما يعني أنا بوق آخرين أنا قاعد يجي هذا سبب كلام مستعد لواحد كوينا لما رجع إن قالن كي يبوق كرونا كوينا لما إلا بدلنا الجوهر كوينا لما إلا الدنيا لا تتنام كوينا لما إلا العروتين مستقبل وتتنام إذن كان عندنا اللي يقولين قرا وحاز بريزان كغيرسية قلنك يبوغاكتا اسكالبتا هو كشقايا قبيالتا قردونسكا مصمار صغير جعلي سيرومات